geedkan la yiraahdo canjeelku waa geed ka mid ah dhirta Soomaaliya oo kaliya ka baxda adduunka botanigana dhirta botanikadana wuxuu ugu yaal canjeel sababtoo ah magaca la siiyay waa magaciisa rasmiga ah oo Soomaaliya looga yaqaan marka muhiimadda uu leeyahay waxa way geedkan waxa laga helaa miro aad u macaan oo dadku cunaan oo xooluhu cunaan buu leeyahay marka geedkan tarantiisuna waa yar tahay ilaa iyo inta la og yahay oo nin weyn xasuusto geedka canjeelka la yiraahdo hal geed kuma darmin sidaa daraadeed wuxuu ku jiraa khatar inuu dabar go'o hadda ilaahay mahadiis ninkan la yiraahdo Saalax Faatax ayaa ku guuleystay inuu beero geedka canjeelka waa soo baxay waxyaalaha igu dhaliyay dhirtaan inaan mataqaanaa aanu abuuro ilaahay sagaashan kood markii dhulka bari la isugu yimi waxa abuurantay qolal la yiraahdo source oo urur aqoon-yahano ah waxay isku dayeen ururkaasu inay abuuraan geedka canjeelka la yiraahdo galab anigoo BBC-da dhageysanaya ayaa Allah u naxariistay janno raxmasiya waxa la weerarsanayay sandikadii hore magaalada Boosaaso Barkhad Cali Saalax ninka la yiraahdo marka wuxuu yiri dhalinyaradii source waxay ku guuleysatay geedka canjeelka la yiraahdo inay beeraan fikradda beerista canjeelka halkaas ay iga soo dhacday nin la yiraahdo Maxamed Salaam Nabadoonka baargaal uu dhalay Maxamed Axmed Salaad ayaa wuxuu siiyay 5 xabo miraha martaqaana canjeelka nin la yiraahdo Axmed Cabdi la yiraahdo oo nursery madaxa ka ah wuxuu ku bilaabay markii horeysay inaan ku ridno bal bac 3 geed ilaahay markii 3 geed muddo ka bacdi way soo dhalatay fikradda canjeelka saas ay noo dhalatay geedkan waa geedka xankookubka waxa uu ka tirsan yahay bahda xananku ka tirsan yahay geedkana waxyaabaha uu caan ku yahay waxa kamid ah xabagtiisa oo loo adeegsado waxyaabo tiro badan oo ay kamid yihiin in la dhoofiyo dadkeenuna ay ku tirsan yihiin xabagtiisa in sidoo kale la cuno in saliid laga sameeyo in kareemo laga sameeyo waxyaabo badan oo loo adeegsado caqabadahaas waxa kamid ah koow xabagta xankookibka waxa kamid ah daayeer baa la yiraahdo ayaa batay oo aan laga gura karin oo dhameystiraya oo canjeelka waxa uu waarsada hanqarka inta sanadkii intaasoo geed bay ku dhacdaa oo baabada caqabadaha haysto kale waxa kamid ah dadkoo jaraya xankookibka isagu waa geed dhaadheer hadda marka waxay sameeyaan nimanka dhirta dhulka shidaa waxay u isticmaaleen geed inay ku gubaan dhirta inay ku shidaan xabag ay ka shidayaan dhuxusha sababtoo ah isaga laamo badan waa leeyahay caleemo badan buu leeyahay xuub buu leeyahay marka taasoo keenaysa in dabku aad u holco waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa una ammaanayaa hambalyo iyo ducana u diraya walaalkay Saalax Faatax oo in muddo isku hawlay kaydinta iyo ururinta dhirta Soomaalida gaarka u ah oo aan maanta anigu aan hor joogo indhahayga aan ku soo arkay laba geed oo aad Soomaalida dhexdeeda muhiim uga ah kuwaas oo ah geedka xankookubka la yiraahdo horaana lagu sheegay caqabadahooda laakiin anigu waxaan rabaa inaan fariin u diro cid walba oo Soomaaliyeed cid walba oo dabqasho leh geedka canjeelka ah hadii uu dabar go'o waxa dabar go'aya noolayaal tiro badan oo ku nool sababtoo ah waa geedka ugu weyn oo Soomaalida ka baxa marka yaaqa laga soo tago marka cid walba waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in Saalax Faatax la garab istaago mutadawacnimada uu sameeyay cid walba oo maaragtay barnaamijka gacan ka geysan kartana inay ka geysato ha noqoto wasaaradaha ha noqoto deegaanka arrimaha ku shaqo leh ha noqoto waxa la yiraahdo ha noqdeen hay'adaha kale ha noqdeen dadka Soomaalida muxsiniinta ah inta waxaan leenahay walaalayaal Saalax Faatax waxa uu u baahan yahay garabkiina iyo gaashaankiina aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.